Hey, what's up guys? Waa Shakur Rashid. Videogeena maanta wuxuu ku saabsan yahay 5 shay oo aad u baahan tahay as a beginner filmmaker. Welcome back. So waxa laga yaabaa inaad bilow meherada filmmaking-ka ama photography-ga dabeetana aad garan lahayd meesha aad ka bilaabi lahayd waxyaabo fara badan oo baratay waxyaabo fara badan waad soo aragtay oo ku saabsan filmmaking-ka marka way ka soo go'day inaad noqoto filmmaker. So waxaad garan lahayd halkaad ka bilaabi lahayd laakiin wad soo diyaar garowday marka waxaan rabaa inaan kula wadaago 5 shay oo aad u baahan tahay as a beginner filmmaker. shayga koowaad haddii nimaadno waxa weeyaan the camera. hayo odhanin imika tusaale ahaan kamarad ma afur garayn karayo kale problemna ma taasi sababtoo ah telefoonadan dambe oo dhan waxay duubayaan kamarad aad iyo aad u fiican oo quality leh marka kama hadlayo telefoon oo kale khaasatan oo aan ku sheegayaan kuugu sii xoojinaya waxa weeyaan kamarad caadi ah ama shay kasta oo interchangeable lenses leh kamaradu waxa saad aragtay ay leeyihiin laba loo qaybiyaa oo marka mid aan laga bedeli karin lenseska iyo mid laga bedeli karo waxaana labada marka waliba la sii dhex galo aan kugu sii adkeynaya waxa weeyaan oo aan ku sheegay inaad baahan tahay lenseska laga bedelo leh ama interchangeable lenses kale waxaan ku leeyahay ama bas kamarada laga bedeli karayo lenseska waxa weeyaan nimka toonada isticmaalka telefoon oo kale focal length-gaaga ama cabirkaaga aad wax ku duubi karto ama cabirka aad arki kartay aperture-kaaga khuseeya waxaas oo dhan waa limited laakiin tan kale lenseskan kale kamarada lenseska marka laga bedeliyo lenseska yar ee cabir kasta khuseeya wad bedeli kartaa dabadna waxaad gelin kartaa ku kala cabir khaas ah kala leh mid aperture-kiisu yar gelin kartaa mid aperture-kiisu weyn aad bedeli karaysaa marka waxaas oo dhan waa option ku banaan bay noqonaysaa marka waxa weeyaan great option inaad isticmaasho interchangeable lens ama mase camera. qodobka labaad ee aad u baahan tahay muhiimka waxa weeyaan lensesku muxuu muhiim noqonayaa san hore soo sheegnay kamaradu la xiriiraya oo kamaradaada hadii ay leedahay lenses kala duwan kolba aad gelin karayso soo sheegnay cabirro kala duwan aad gelin karaysaa marka tusaale ahaan hadda doonayso inaad shay ka fogo kale aad soo compress karayso background-kii ka dambeeyay isagana si fiican loo arko waxaad isticmaalaysaa mid focal length-ga ku dheer yahay oo zoom lenses ah marka prime lenseska iyo zoom lenseska iyaguna way kala duwan yihiin marka prime lenseskana waxaa loo isticmaalaa waxyaabaha wire-ka ay doonayso inaad iftiin badan oo ku soo galo ee aperture-koodu weyn yahay zoom lenseskuna waxay ku fiican yihiin waxyaabaha ka fogni ku soo dhaweeyaan iyagoo ku ilaalinaya blurry background ku sameynaya compress-na ka dhigayo shaygii ka fogaa in kaad buur daba taaganto kale oo zoom tadabana aad mid zoom dheer la soo qaadato meelaha ilaa 300 mm dabadna aad soo dhaweyso kale qofkiina wuxuu ku noqonayaa si yaro fiican oo frame-kii ku leeg shaygii ka fogaa ama qof aan ama shay kala noqday background-kii ka dambeeyay in badan ka fogaan lahayd mid wide aad ku duubi lahaydna ee dareemi lahayd dabeetana inuu background-ku aad uga fog yahay kale aad buu ugu soo dhawaanayaa compressed noo noqonaya frame-kaaga uu ku leekaanaya marka inaad lenses kala duwan haysato waa muhiim iyaduna. qodobka saddexaad waxa weeyaan inaad yeelato ama saacad isticmaasho oo muhiima 3 ama 2 SD card oo kale SD cardskaas aad muhiim u yihiin oo hadduu mid ka xumaado kale ayaa ku caawinaya oo kale oo ku noqonaya backup marka saddexda inaad isticmaasho kala duwan ee aad soo lahaan 32 GB ama 64 ama 128 kale meelahaas kale saddexda hadda isticmaasho ama laba kamid hadda isticmaasho even hadda xabad isticmaasho waa ku muhiim oo dalaanteed ma soconayso waliba waxaan aad iyo aad kugula sii talinayaa nooca loo yaqaan SanDisk-ga kuwaas very fast and reliable oo inta badan dadku isticmaalaan laguna kalsoon yahay. qodobka afraad waxa weeyaan stabilizer any kind of stabilizer baad u baahan tahay walibana waxa aad iyo aad u sii muhiim ah marka koowaad tripod hesho sababtoo kamarada mar walba ma sidee waxaad u baahan tahay shay aad u dhigto oo stable ka dhiga gargariirkana ka ilaaliya oo gacanta ka duwan marka waxa loo baahan yahay isticmaasho iyadana stabilizer marka waxa muhiim ah inaad isticmaasho tripod oo kale ama monoboard oo kale ama kuwan gorilla tripod kale dhahday yar ee stretcher-ka ah lagu hoodo qalqalacsanaan meesha doontaad ku xiri karto waa muhiim inaad isticmaasho. qodobka shanaad ee ugu dambeeya waxa weeyaan audio aad iyo aad buu muhiim u yahay inaad hesho shay
يعني كلية أو any source of external mic ama se kamarada ka baxsan oo codka ku duubaya waa muhiim wuxuu muhiim u yahay codkaaga hadda tolo fiidiyoda sameynayso iyo yani kuwa aad iska duubsay kuwa cid kale u duubsay waxyaabaha fiidiyoda kala duwan sameynayso hadaan cod lahayn يعني ما نقول next level يعني كور ما كعيس any source بو noqon kara microphone kiba soo galaya marka microphone kala duwan yihiin ka ugu cheapsan ee ugu macquulsan codkaagana duub si fiican u duubaya codkana yani aad ka heli karto storieska kugu dhowna aad buu muhiim marka aad soo raadi ka ugu fiican soo qabso ee aad marka budgetkaaga goyn karaya hadii marka si guud soo koobno number 1 aad kamarad hesho number 2 waa inaad hesho lenses number 3 waa inaad hesho memory cards kala duwan at least 1 or 2 inaad hesho qodobka afraad waxa weeyaan inaad stabilizer hesho oo yani shotskaaga aad stable ka dhigto qodobka shanaadna waxa weeyaan inaad audio-gaaga ilaaliso maanta inta ay noogu ekaado fiidiyogu aad baad mahadsan tahay fadlan fiidiyoga aad ka heshay like saar sidoo kale subscribe dheh channelka ku soo biir hadaadan hore ugu soo biirin sidoo kale barta commentiga nagula wadaag yani shanta waxaan ahayn oo muhiim oo aragtay inay muhiim yihiin fiidiyogana fiidiyogii koowaad ku labadna insha Allah inuu sameyn doonaa marka yani inta hadad haysato iyo hadad su'aalo kala qabta insha Allah nagula soo wadaag barta commentiga aad baad mahadsan tahay sida inay fiidiyowga dambe ku kulmi doono peace